السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. وقصص كنولوشي مهاراتك فرنسيسكا وقتيدا الدولة العثمانية عزيزكا أهايين مسلمين أهايين على لوك إسلام كان كتلنا ينقعندكو هايين يا وحال عضي جارمالكو في حدود للي دنكا تركيغا iyo xuduud kale dhanka badda uu kala leeyahay marka faransiiska waxay soo weerari jireen jarmalka webiga waxaa jira u dhexeeya jarmalka iyo faransiiska u dhexeeya marka webigaas marka waxay ahayto intay kasoo talaabsadaan iyo waxyaabaha ay beertaan ay ka boobi jireen jarmalka boobi jireen marka arrintii way xallin waayeen maalmo beerta sanadka usoo go'i rabtaba waxaa dhacayso in laga boobo waxoodii laga qaato waayay markaas tabacoodii uu noqdo khasaaro waxay usoo dacwoodeen usoo ashtakoodeen khaliifkii Cuthmaaniyiinta ee markaas xilligaas jiray marka khaliifkii muxuu ku xaliyay arrintii muslimiinta si casiisiin u ahaayeen dad la karaamo u lahaayeen wuxuu ku xaliyay dharkii ciidanka inkishaariyiinta ay lahaayeen inkishaariyin waxaa la yiraahdaa ciidan dowladda Cuthmaaniya ay lahayd waa FBI-da Mareykanka oo booskiisa kale ku jiro ilmaha dayacan ilmaha suuqa adoomada lagu gadi jiray dhalinyarada ahaa wiilal iyo gabdho ilmaha maxay ahayto bala'aanta dhashay oo maxay ahayto isbitaalada iska yaalay waxaas dhan inta la aruuriyo ilmaha darbijiifka inta la soo aruuriyo oo diinta la baro oo la tarbiyeeyo yaa waxaa lagu dari jiray ciidanka lagu dari jiray markaas maxay ahayto ay noqon jireen dad islaamka diinta la baro laf dhabar dowladdu ahaan jireen jeeshka lagu kabi jiray waxyaabaha dowladda Cuthmaaniya inay dheeraato waqti dheer ay taliso keenay inkishaarinta markii inkishaarinta la baabiyay 1855 ingiriiska baabiyay ka dambeeyay dowladdii way hoobatay kadibna way dhacday marka ciidankaas inkishaarinta dhar gaaray lahaayeen meel gaar ah lagu tababari jiray uniform gaaray lahaayeen kooxa u kala qaybsanayeen qaar waxaa la firqatul majaaniin kuwa dhar shabeela loo gelin jiray ciidanka jihaadka la aadaay oo maxay Yurubta bari dhan ee islaamka galiyeen marka firqatul majaaniin hujuumkii weerarka ay bilaabi jireen marka ayaga ka qayb kala duwan lahaa kuwa qasriga ilaalinaya kuwa maxay tahay jihaadka markay balabaxa safka hore dagaalka bilaabay oo loo yaqaan firqatul majaaniin marka kuwaas marka uniformyaal kala duwan ay lahaayeen marka khaliifku wuxuu yiri uniform uu siiyay ilaa 100 qof maxay tahay ku dhawaad uniform fara badan uu siiyay uniformkan wuxuu yiri xirtu yir gashada uniform gashada marka waxay hay'ad beerta isoo go'i rabto waqtiga ay weerarka idinku imaanayaan oo soo dhow yihiin waxa sameeysan dharkan gashada seefihiin wixii qaata beeraha hortooda istaaga iska dhiga kaana ciidan Cuthmaaniyiin oo meesha soo gaadhinaya marka sidii way yeeleen dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii meesha joogay labiskii inkishaariyiinta ciidankii Cuthmaaniyiinta ilaa bugsaad gashteen markii beerta soo go'is beerihii goosteen kadib faransiiska markuu imaaday sidoo caado u heedo uu boobi jiray maxay dadka reer galbeedka weligood ma fi ahaan weligood wax boob iyo wax dhacmoogi wax kale meeshaan kun san kaniisada gumaysan jiray nolol hadeer ugu horeyso ay helaan ama xadaarad ay helaan ama cilmi ay helaan daa'iman waxay ahaan Yurub islaamka kaniisadaha ka hor istaagay Yurubta baranka Cuthmaaniyiinta Yurubta galbeed ma aysan aqbalin islaamka dhulka islaamka dhan islaam adduunka dhan islaamka ku faafay ayaga markasta waxay ahaan dad waxay ahayd viking oo kale normal ku dhigi jiray weerar inta wax soo dhulka islaamka soo weerar ama bariga soo weerar ama meel soo wax boobaan haddana ay noqdaan nahbu salbi noloshooda dhan ay ku jiri jireen waa in wax boobitaan iyo maafiinimo marka faransiiska markuu sida caadada u ahayd markii waqtiga beeraha soo go'i rabeen ay soo baxeen ayagoo weerara markii webiga ka soo talaabsadeen waxay arkeen ciidan ama labiskii dharkii Cuthmaaniyiinta ay ku yaqaaneen way cabsadeen marka dib u degteen waxay isdhaheen jeesh Cuthmaaniyiin meesha soo gaaray inta maxay ahayd dad faraha la gashaan ama ad weerartaan hadhow faransiiska dhexda gudihiisa idinku imaadaan dib bay u degteen markay arkeen sidaas marka Jarmalka uu kaga badbaaday weerarkii faraha badnaa ee faransiiska ay ku soo qaadi jireen ay kaga cuni jireen ay kaga boobi jireen hantidooda kaga boobi jireen taasna waxay fahaysaa marka muhiimadda dowladda islaamka u leedahay ummadda amnigeeda inay ilaaliso ummadda amnigeeda iyo hantideeda xoolaha xataa gaalkii inuu badbaadayo oo maxay la taabanaynin lagu xadgudbeynin markii ummadda dowlad xalaala iyo dowlad islaamiya muslima ay dadku haystaan oo maxay aan lagu soo dhiiranaynin dadka in hantidooda iyo maxay maalkooda iyo maatidooda aan laga soo faragashan taasna waxa waaye marka sharafta muslimiinta ay soo mareen iyo cizada ay ku noolaayeen iyo si lagu helo xataa khaliif Suleymaan waxa maxay faransiiska 100 sano waxa la dhahay ciyaar banaan kale lama soo aadin
waxaa loo soo sheegay isagoo maxay Suleymaan Qaan waqti uu talinayay ayagoo maxay ahaato ciyaar iyo fisq kula sameynayo maxay Baaris dhexdeeda markaas wadankaada dhulka dowlad Cuthmaani u dhow yahay waxaa noo sheegay munkarkaas inuu dhulkeena soo gaarin markaas uu ka manciyay 100 sano ciyaar iyo maxay ahaato iyo dhafar lama soo aadin Faransiiska banaanka looma soo bixin aan yiri ilaa ay dowladda Cuthmaaniyiinta ay daciiftay taasina waa ciidamada muslimiinta ay muslimiinta lahaayeen markii adduunka ay ka tilinayeen wallahu a'lam